habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada caawiya caalamka waxaan ahay Cabdiraxmaan Bidhaan wararkana waxa ugu waaweyn ra'iisul wasaarihi hore Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa London ku geeriyooday kadib markii uu muddo kooban la xanuunsanayay fayraska corona taariikh nololeedkii ra'iisul wasaarihi hore ayaanu eegi doonaa wararka kalena waxa kamid ah jamhuuriyadda iskeed ku dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland ayaa magaalooyinka ka buufinaysa fayraska corona kadib markii 2 kiis oo corona ah shalay halkaasi laga helay iyadoo bandooda corona lagu jiro ayaa tuulo Masar ku taala u guntatay inay caawiyaan dadka ku go'doomay xadadka kala socod BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkan waa BBC London caawiya caalamka ra'iisul wasaarihi hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa maanta ku geeriyooday magaalada London oo u dhawaanahanba fayraska corona uu kula jiifay waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa qaybtiisa dambe taariikh nololeedkiisii hase yeeshee waxaan doonaynaa inaynu baleegno guud ahaan wararka guud ee fayraska corona qaramada midoobay ayaa ku baaqay inay Soomaalidu u midowdo sidii loola dagaalami lahaa coronaviruska oo ilaa hadda 5 kiis laga xaqiijiyay dalka Soomaaliya James Swan ergeyga gaarka ah qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay qaramada midoobay barbar taagan tahay dadka Soomaaliyeed iyadoo lagu jiro waqti adag waxaanu hoosta ka xariiqay inay wadi doonaan dadaalkooda ku saabsan inay kaabayaasha bulshada caawiyaan sida caafimaadka iyo dhaqaalaha oo saameynta uu ku yeelan karo virusku waxa kale oo uu ku celceliyay ergeyga gaarka ah hadalkii xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku dhawaaqay ahayd in xabad joojin degdeg ah oo caalami la sameeyo si colaadaha loo joojiyo oo loogu jeesto ka hortagga viruska iyadoo la midaysan yahay tani ayaa imanaysa iyadoo shalay jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland ay ku dhawaaqday in halkaasi laga helay 2 kiis oo viruska corona isla xalayna waxa la bilaabay in la buufiyo magaalooyinka Soomaaliland waa kan Khadar Xaaji Cabdilaahi oo wararkii ugu dambeysay Hargeysa nooga soo diray kadib markii xalay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay xaqiijisay in 2 qof oo caabuqa COVID-19 qaba laga helay Soomaaliland ayaa waxa isla xalayba ay bilowday dawladda hoose ee magaalada Hargeysa inay hawlgallo caafimaad ay ka fuliso dariiqada aadka waaweyn ee magaalada Hargeysa iyadoo la buufinayay goobahaasi waxa sidoo kale markii uu waagu bariyay ay dawladda hoose bilowday inay burburiso goobaha wadooyinka u dhow ee ay dadku ku qaylaan iyo maqaayadaha shaaha dhanka kale wasiirka warfaafinta Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inay mas'uuliyiinta caafimaadku ay ku daba jiraan 2 qof ee caabuqa laga helay dadkii ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa isna maanta waxa uu cafis madaxweynuhu fidiyay 547 maxbuus oo ku kala xidhnaa xabsiyada dalka maxaabiistan oo la sheegay inaanay dambiyo aad u culus gelin sida warbixinta madaxweynuhu soo saaray ku xusnayd maxaabiistan hadii la sii daayo waxay culays badan ka qaadaysaa jeelalka oo ay maxaabiis badan ku xidhan yihiin وماذا خضر حاج عبد الله عالم كادينو اغنو تريدا غود ee corona waxay maraysaa 800,000 dhanka Yurubna dalka Spain ayaa dhimashada ugu badan diiwaan galiyay 24 saacadood aan soo dhaafnay 846 qof ayaa ku dhintay dalkaasi Talyaaniga ayaa wali ugu badan tirada dhimashada ee Yurub waxaana ay sii kordheen talaabooyinka xayiraadda ay dawladda Talyaanigu ay qaadayso dalka Mareykanka ayaa imika ugu badan tirada kiisaska waxaana Mareykanka u dhaafay 190,000 madaxweyne Trump ayaa digniin adag u diray dadweynaha Mareykanka waxaana uu yiri 2 toddobaad ee soo socda waxay noqonayaan 2 toddobaad oo adag isagoo ugu baaqay dadku inay raacaan talooyinka iyo awaamirta xagga Shiinaha hadaynu eegno madaxweyne Xi Jinping ayaa ku baaqay in dalku ayar ugu soo noqdo shaqada iyadoo dadkuna ay tahay inay weli kala fogaadaan madaxweynaha ayaa sheegay in dadku ay filimada ku daawadaan guryahooda intaana shaneemada tagi lahayn buu isla markaana wuxuu soo jeediyay restauranada ama makhaayadahu inay dadka xadidaan soo galaya Shiinaha ayaa ka baqaya in dalka ku soo noqonayaan dad ka imanaya dibadda oo fayruska sita mar labaad dalkan UK-na waxa sare u kacay kiisaska iyo dhimashada fayruska corona wariyaha BBC-da Mawlid Xaaji Cabdi ayaa indhaha noogu hayay wararkii ugu dambeeyay ee Ingiriiska goorsii horeysay ayuu ii waramay بدان waad mahadsan tahay markaynu si guud u fiirino tirada dhimashada cudurka COVID-19 dadka u geeriyo dalkan UK shalay ilaa maanta waxa jirta in tiradu ay korortay oo 563 ay gaartay dadka cudurka laga baaray waxay gaarayaan ilaa 150 in ka badan waxaana la sheegay 29,000 in laga helay cudurka dadka dhintay waxa kamid ah dhaqaatiir qaarkood muslimiin ay yihiin
afar dhakhtar ayaana ka xusi karnaa oo mid ka mid u dhashay dalka Suudaan mid ka mid dalka Nigeria u dhashay dhaqaatiirtaasina waxay ku howlanayeen hawsha la tacaalida cudurka mid ka mid ah wuxuu u dhashay dalkaas Nigeria 67 sano ayuu jiray wuxuu ahaa dhakhtar howlgab noqday laakiin codsiga dawladda ayuu shaqada dib ugu soo laabtay wuxuuna u geeriyooday coronaviruska sida qoyskiisa ay sheegeen Soomaalida markaynu fiirino dad badan oo Soomaaliya ay cudurku haleelay qaarkood ay guriyeedeen ilaa iyo 10 qof ayaa ilaa iyo hadda BBC-da fahamsanta in magaalada London oo kaliya ay ku dhinteen cudurka dartiis kuwa badan ayaa asbaalka ku jira dadkii dhintay waxaa ugu dambeeyay wiil yar oo Soomaaliya oo 13 sano jira oo leeyahay Ismaaciil Maxamed Cabdiwahaab oo noqday qofkii ugu da'da yaraa dalkan UK ugu geeriyooday cudurka isbitaalka King's College ee magaalada London ayuu ku geeriyooday isbitaalkaasina waxaa maanta ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Allahu raxmadiyo Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ومهدسين مولد حاج عبدي هذا بس مولد الشيء وحا كمد هذا ددكي maanta geeriyooday Allah naxariiste ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cadde waxa khadka Skype ka toos ugu jira hadaba si aan wax uga weydiiyo taariikhda marxuumka Cabdicasiis Cali Ibrahim Xildhibaan oo buug ka qoray isagu maamulada iyo madaxda Soomaalida Cabdicasiis soo dhawow hadaynu taariikhda marxuumka dib u eegno maxaad inooga sheegi karaysaa taariikhdii iyo sidii ku soo barbaaray Allah naxariiste Nuur Cadde marka hore taasi u darayaa gudaha shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii ehelkii iyo qaraabadii ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee dawladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Cornel Nuur Xasan Xuseen oo loo yaqaanay Nuur Cadde waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1938 da'diisu waxay ahayd 82 jir wuxuu ku geeriyooday magaalada London ee dalka Ingiriiska waa berigii hore ee Saakay Nuur Cadde haddii aan yar ka iraahdo taariikhdiisa wuxuu ku biiray ciidanka booliiska Soomaaliyeed 20kii bishii December sanadkii 1944 wuxuuna u wareegay qaybta canshuuraha ee loo yaqaano turbatariyada 1954kii Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde wuxuu soo qabtay howlo fara badan intii ay jirtay ama jireen dawladihii isaga kala dambeeyay Soomaaliya laga soo bilaabo 1965 ilaa 1990kii oo uu ka shaqeynayay dawladihii soo maray Soomaaliya waan gartay Cabdicasiis maxaa aad ka sheegi kartaa xilalka waaweyn ee aan ku ahayn ee uu soo qabtay Allahu naxariiste Nuur Cadde xilalkii ugu waaweynaa marka laga soo tago qaybihii taliskii ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu ka tirsanaa uu ka gaaray darajada gaashaanle sare Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde 1986 waxa uu noqday ku-xigeenkii xeer ilaaliyihii guud ee maxkamadii badbaadada ciidamada ee Soomaaliya wax yar kadib waxaa loo magacaabay xeer ilaaliyihii guud ee maxkamadii badbaadada dalka ee Soomaaliya Nuur Cadde wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaalida ee isugu jirta madaxweynayaasha ra'iisul wasaarayaasha gudoomiyayaashii golayaashii baarlamaanada iyo shacbiga 25kii golihii sare kacaanka 13kii leegada buugga aan ka qoray ee maamuladii iyo madaxdii soo martay Soomaaliya Nuur Cadde halkan runtii caawa laguma soo koobi karo 3 daqiiqo ama 5 daqiiqo taariikhdiisa laakiin waan gartay Cabdicasiis bal hadaynu soo koobnaado soo koobaya maxaa lagu xasuusan karayaa in Allah yarxamo Nuur Cadde Nuur Cadde muddadii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Soomaaliya magaalada Muqdisho wuxuu dagaal aad u adag ama u culus ku dhexmarayay ciidamadii Itoobiya ee soo galay Soomaaliya tabayaaqadii sanadkii 2006 Nuur Cadde waxay wax badan xagga fikirka dib u heshiisiinta isku khilaafeen madaxweynihii isaga magacaabay ee bahin xariistii jannaha siiya Cabdullaahi Yuusuf Axmed qaabkii loo wajihi lahaa shirarka dib u heshiisiinta ee lagu qabtay jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Djibouti Nuur Cadde wuxuu ii sheegay Allah u naxariiste Cabdullaahi Yuusuf mar ay dhowr jeer oo ay isqabteen in Cabdullaahi Yuusuf aan anigu afkiisa ka hayo inuu yiri Nuur Cadde habeenkiina waan kala dhimanaa subaxiina waad ii timaadaa yacni xagga shuruucda wuxuu ahaa nin aad iyo aad uga adag oo askari ahaa waxyaabaha lagu xusuusan karo waxaa ka mid ah in ciidamadii Itoobiya ee soo galay Soomaaliya ay ku bixeen qorshihii siyaasadeed ee uu ra'iisul wasaaruhu la yimid ee laga saarayay ciidamada Itoobiya guud ahaan Soomaaliya dhinaca kale waad mahadsan tahay Cabdicasiis xagga dhadhanka ayaa la leeyahay iyo urtaba koronuhu saameyn ayuu ku leeyahay waana calaamadaha lagu garanayo jaamacadda King's College London ayaa cilmi baaris ku
samaysay ay sheegtay in 9% dadka koronaha qaaday laga helay markii hore inay urta ay waayaan ama dhadhankaba. ruushka ayaa sheegay inay bilaabayaan inay Maraykanka u daadgureeyaan waxay ugu yeedheen kaalmo banaadinimo si ay ugu caawiyaan masiibada safmarka socda ee coronavirus. lama oga qiyaastii waxa ruushku dirayo. ruushka iyo Shiinaha ayaa taala alaabooyinka ay dirayaan maalmahan propaganda u isticmaalayaan la leeyahay iyagoo sheegin kaalmada iyagana dhankooda loo qaaday ee la siiyay labadaasi dal. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraad ah iyo wararkii ugu waaweynaa. si aad u hesho wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. weli waxay noo soo socda caawa iyadoo bandooda koronaha uu adduunku ku jiro ayaa tuulo Masar ku taalla u guntatay inay caawiyaan dadka ku go'doomay xadka Masar iyo Suudaan. soo dhawaada daawadayaal mar labaad waxaad daawanaysaan caawiya caalamka anoo Cabdiraxmaan Bidhaan idin la socodsiinaya wararkan waxa ugu waaweynaa. Ra'iisul Wasaare hore Soomaaliya Allah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa London ku geeriyooday kadib markii uu qaaday coronavirus. Somaliland ayaa iyaduna bilowday inay buufiyaan magaalooyinka kadib markii halkaasi laga helay 2 kiis oo ku saabsan coronavirus. naadiga deymaha bixiya ee Paris ayaa shalay ogolaaday inay dib u habeyn ku sameeyaan deynta Soomaaliya lagu leeyahay taas oo ay ka mid tahay inay ka daayaan 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo deyn ahayd. mushkiladda ka taagneed Soomaaliya oo jirsatay 30 sanadood ayaa waxay keentay in Soomaaliya ay gabi ahaanba ka soo xiranto nidaamyada dhaqaalaha ee caalamka. in deynta laga daayay Soomaaliya waxa la filayaa inay albaabo furan oo dhaqaale ay u furi doonto. haddaba waxaa khadka Skype-ka toos ugu jira magaalada Muqdisho wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Bayle. wasiir soo dhawow. wasiir haddaan hore u galo su-aasha ugu horeysa waxaad ku tilmaantay deyntan laydinka cafi dhaafay inay tahay waan gartay wasiirka waan kusoo noqon doonaa hadday suurto gasho xagga farsamada. wararka ciyaaraha ayaan hore ugu soconaya. tartanka tenista Wimbledon Championship ee London ayaa lagu qabto ayaa gabi ahaanba baaqday safmarka coronavirus awgii waxay ahayd inuu dhacdo 26 Juun ilaa 12 Juulaay. gudida qabanqaabada ayaa sheegay in aad uga xun yihiin in tartanku socon waayo waxaana ay noqonaysaa taariikhda markii koowaad ee tartankaasi dib loo dhigo. naadiga Tottenham Hotspur ayaa 20% ka jaray mushaharka shaqaalaha naadiga aan iyagu ciyaarin iyadoo dhammaan ciyaarihi ay istaageen waqtiga lagu jiro safmarka coronavirus. gudoomiyaha kooxda Daniel Levy ayaa isagu laftigiisu sheegay inuu mushahar dhimis gali doono. sanadkii hore ninkaasi waxa uu guriga la hooyday baa la yidhi 7 milyan oo gini. dhanka kalena ururada ciyaaraha ee kubadda cagta ee dalkan Ingiriiska iyo horyaalka Premier League
ayaa kulmaya waxaa la isla eegayaa bal mushaharooyinka ballaadhan in horyaalkaasi laga qaato iyadoo la rabo in la raadiyo hab lagu caawin karayo naadiyada iyagu dhibaatada dhaqaale ee ka soo gaadhay safmarkan socda iyadoo fayruska corona ee qaaradda Afrika uu sare u sii kacayo iyo cabsida cudurka la xidhiidha waxay ku baahday adduunka oo dhan waxaanay horseetay in dadka shisheeyaha ah la takooro gaar ahaana bariga Afrika Ethiopia iyo Kenya iyo haddaynu eegno xitaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa cabsi laga qabo COVID-19 dartii aflagaada iyo gacan ka hadal lagu geystay dadkay wadamada reer galbeedka sababtoo ah kiisaskii ugu horeeyay gobolkaasi soo gaadhay waxaa keenay dad Yurub ka yimid iyo Mareykan Ismaan Cabdi Xasan ayaa eegaya halkani waa Eten waxa loo yaqaan saldhigga ciyaartoyda ciyaaraha fudud ee adduunka iyo Olombikada tobaneeyo sano magaaladan ku taal galbeedka Kenya waxa ay soo saartay ciyaartoy ka badan inta dunida kale ka timid oo rikoor dhigay shaki kuma jira in ciyaartoy badan oo gudaha iyo dibadda ay ka bilaabeen tababarkooda magaaladan caanka ah balse khatar ayaa soo food saartay sumcadaas wanaagsan toddobaadyadii dhawaa waxaa la arkayay dadka deegaanka oo aflagaado iyo weerar ku qaadaya ciyaartoyda shisheeye waxayna ku eedeynayaan inay qabaan fayraska corona Toti Kobalan oo ah tababare u dhashay Spain ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee si toos uga hadla kadib markii dhagax lagu tuuray looguna yeeray corona isagoo ku ordayay magaalo ku taal Kenya ugu yaraan 4 ciyaartoy kale ayaa BBC-da u sheegay in si xun loola dhaqmay waxaana dadkaasi ka mid ah ciyaartoy u dhashay Switzerland oo hadda isla magaaladaas ku tababaranaya waxaaba laygu yeedhay corona markaas dadkina way ga yaaceen oo way ga baqdeen dadka lama yaabayo waayo waqtigaa keenay waxaan isleeyahay cudurkeedu ka qaadi doontaan marka waan ixtiraamaya ra'yigooda qaar ka mid ah ciyaartoyda shisheeye ee ku tababaranaya Eten ayaa hadda go'aansanaya in ay koox ku baxaan iyadoo ay la socdaan ciyaartoyda gudaha si ay uga fogaadaan in la beegsado waa arrin ciyaartoydii hore ee gobolka ay aad u dhaleeceeyeen waxaa jirta in dhalintu aysan lahayn aqoon ku filan oo ayna qalad ka aaminsan yihiin dadka waaweyn waxa kale oo ay aaminsan yihiin in fayraskan uu ku dhaco dadka caddaanka oo keliya ee uusan ku dhicin dadka madowga Kenya kaliya kuma koobna ee bariga Afrika oo dhan ayay ka jirtaa bisha Maarch gudaheed ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu ugu baaqay dadkiisa Ethiopia inaysan weerarin shisheeyaha tani waxay ka dambeysay kadib markii safaaradda Mareykanka ay u digtay muwaadiniinteeda halkaas waxayna arrintaas la xiriirtay kadib markii dad reer galbeed ah la tuuriyay qaarna la ciirsaday halka kuwa kalena candhuuf lagu tufay arrimo la xiriira cabsida fayraska corona Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo shaqaale gargaar oo aan doonayn in la aqoonsado ayaa BBC-da u sheegay in lagu qasbay shisheeyaha la shaqeeya hay'adaha gargaarka inay dib u eegaan ammaankooda kadib markii dhowr ka mid ah gawaaridooda dhagxaan lagu tuuray haddii aan ku laabanno magaalada Eten Alex Jododo ayaa diraya fariin gaar ah oo ku saabsan in loo midoobo wax uu ku tilmaamay xilli dunida oo dhan ku adag waa wax laga murugoodo laakiin waan ixtiraamayaa waan fahamsanahay dadka Kenya xaaladda ay ku jiraan marka waxaan leeyahay hal la istajiyo hakuna matata wax wala way hagaagayaan hakuna matata and be together in that situation bal imikana waxaanu eegaynaa in caalamkii 3 meeloodow markaad eegto 3 meel waxaan jeedaa marka 3 meelood u qaybsay 2 meelood ay caalamka gabi ahaantiisiba aad mooto inay ku jiraan bandooyo oo uu keenay safmarkaasi coronavirus warbixin ayaan idin haynaa halkan waa goobta xayiraado markii koowaad ka bilaabatay isla markaasna mas'uuliyiinta Shiinuhu sida degdeg ah wax uga qabteen faafitaanka COVID-19 tirada dadka qaaday fayraska ee adduunka ayaa korortay waddanka ugu saameynta badan Yurub waa Talyaaniga ayaa go'aansaday inuu xanibo qaybaha waqooyiga ee dalka wadamo badan oo Yurub ah ayaa tallaabadaasi raacay xuduudahana xiray Spain waxay amartay xayiraad caasimada Madrid waxay ka mid tahay meelaha ugu daran waddanka tani waa Londontii saxmadda badnayd hadda sidan ayay u eg tahay waxa argagax geliyay cudurka waa saxare waana cidlo UK waxay soo rogtay xayiraadyo isu imaanshiyaha ah iyo in guriga banaanka looga baxo haddii aanay ahayn daruuri tanina waa sida uu eg yahay fagaaraha Times Square oo la xiray New York hadda waa ubuucda cudurka dalka Mareykanka halkaasi oo tirada kiisasku xawli u kordhayaan
xanibaadda adduunka ugu ballaaran 1.3 bilyan oo qof ayaa mas-uuliyiinta hindiya qasbeen si nolol loo badbaadiyo koonfur afrika waxay galaysaa 3 toddobaad oo xanibaad ah ganaaxyo adag oo la saarayo kuwa ku xadgudba xayiraadaha laakiin hogaamiyaal badan ayaa weli go'aansan inay xanibaadyo socodka duldhigaan muwaadiniintooda mexico waxay ka mid tahay dalalkaasi halkaasi oo maqaayiduhu furan yihiin badi dadka noloshooda maalinlaha ayay ku jiraan xeeldhaarayaasha ayaa ku bixiyey digniin in dadku guryaha joogaan iyo in mas-uuliyiinta looga baahan yahay inay dhaqangeliyaan tallaabooyin adag oo lagu meel mariyo xayiraadaha weli wararka coronavirus aynu ku jirnaaye wacyigelintiisa haddaynu eegno mas-uuliyiinta caafimaadka adduunka ayaa dadka ku waaninaya inay gacmahooda dhaqaan oo aanay wejiga islamarkaasina taaban taasi oo bay leeyihiin muhiim u ah in la xakameeyo virusku inuu fido haddaba waxaa la isweydiinayaa sidee bay taasi ku suurtogelaysaa waa kan qaalib xasan baarud shaqaalaha caafimaadka ayaa dadka uga digaya inay wejigooda taabtaan laakiin maxay odhaahdu uga sahlan tahay qabashada iskama dayn karno waa arrin caado inoo ah oo aan la qabsannay waana ognahay in ilmuhu xataa markay uurka ku jiraan ay wejigooda taabanayaan marka haddii aad isku sheegayso mar kasta ood wejigaaga gacanta saarto inaad ku xanuunsanayso waxaad naftaada u sheegaysaa wax aan suuragal ku ahayn waxaan wejigeenna u taabannaa badanaa waa in nafsadeenna aan ku dejinayno meelaha qaar wejigeenna marka aan gacanta saarno waxay howlgeliyaan qayb ka mid ah nidaamka dareemaha oo la yiraahdo parasympathetic kaasoo qofka deganaansho u keena bani aadamka kaliya maahe xitaa eyda iyo bisaduhu wayna la qaban dabeecaddan carruurta ayaa iyaguna qaata dabciga waalidkood marka haddii waalidiinteennu markay ama kaagsan yihiin ama ay caraysan yihiin gacmaha wejiga la aadaan inaguna badanaa sidooda oo kale ayaan samaynaynaa arrinta cajiibka ahse waxay tahay hadda oo ay tahay wakhtiga ugu muhiimsan inaadan wejigaaga taaban maskaxdu adigoon dareemin ayay ku mashquulinaysaa si ay u samayso wixii ay naftaada ku degi jirtay marka maskaxdaadu adigoon dareemin ayay gacantaada geynaysaa wejigaaga sidee baad uga digtoonaan kartaa inaadan taaban iyadoo aanay suurtagal ku ahayn inaad gebi ahaanba joojiso taabashada wejigaaga hababka kuu sahlaya waxaa ka mid ah inaad mindha okyaalo xirato halkii aad cadisadaha indhaha lagu dhejiyo xiran lahayd ama waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan ay iska yareeyaan si aanay hadhow ugu baahan inay toostoosiyaan ama wax dheeraada ay sii marsadaan iyo xitaa in qofku uu sameeyo waxyaabo uu gacmihiisa ku mashquuliyo marka intii aad meelaha socsocon lahayd gacmahaagoo shaqala taasoo fududaynaysa inay wejigaaga iska aadaan waa inaad isku laabtaa gacmaha oo aad dhabta ku haysaa si marka aad wejigaaga taaban rabto u soo xusuusato inaad gacmahaaga nadiifisay ka hor inta aadan wejigaaga ku taabsiinin waa tahay weli waxaynu ku jirnaa wararka koronaha waxaa jirta koronu sida u dhacay inaad ogtihiin in dad badan ay badxidhan dhacay oo dad badan ay meel walba ku xanibmeen oo xadadka lagu xanibmay oo eerboodhada lagu xanibnay laakiinse tuulo masar ku taala ayaa iyadu u guntatay inay caawiso dadka guryahooda aan ku laaban karaynin halkaasi ku xanibmay Caaisha Afrax ayaa noo haysa tuulo yar oo ku taala dalka Masar ayaa raashin bilaash ah lagu siinayaa boqolaal qof oo Suudaniis ah oo halkaasi ku xaniban marka ay dadka Suudaaniyiintii macaawinana weydiistaan waan u soo baxnay ilaa 1200 qof ayaa imika halkan ku xaniban oo cunto iyo biyaba u baahan marka dhibaatada fayraska corona ay u horseeday in dawladda Suudaan ay xayiraad ku dhawaaqday muwaadiniinteeda qaar ayaa ku xayirmay dalka banaankiisa iyadoo xadka u dhaxeeya Masar iyo Suudaan lagu dhawaaqay in la xiray ilaa iyo amar dambe waxay dadkani leeyihiin ilaa iyo 3 toddobaad ayay halkan joogeen qaar shaqo ayay u yimaadeen qaarka kalena waxbarasho balse dadka tuuladan ayaa ku caawinaya wax ay awoodaan inkastoo ay dareemayaan in aad loo qadariyay haddana qoysaskani kaliya waxay doonayaan inay guryahoodii ku laabtaan balse ma oga goorta ay taasi dhici doonto waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo